jacaylku waa kelimad wanaagsan waa eray aad u qurux badan oo aan lahayn wax ceeb ah jacaylku ma ahan sida dadka qaar ay u malaynayaan inuu yahay jacaylku wax xun ama wax ceeb ah ama wax xaaraan ah wallaahi ma jira wax ka qurux badan qalbiyada dadka isjecel markaad haweeney jeclaato waxaad dareemaysaa inaad samada duulayso yaa waaye qofka awooda inuu ku noolaado dunidani asagoon wax jeclaanin ama la jeclaanin qofka dhalinyarada ah markuu yahay qof mashaqaysta ah ama qof aad u murugoonayo hadduu si kedisa u arko gabadhuu jeclaa wuu qoslayaa caddaynta iftiinka indhihiisa ka muuqata haddii indhuhu ku hadli lahaayeen luuqadahooda waxay dhihi lahaayeen oraah aanan dhihin qof bini'aadan weligiisa waxay dhahaan culimmada nafsiga wakhtiyada ugu farxadda badan cimrigaaga ama cimriga aadanaha waa markii uu jacayl ku dhaco qalbigiisa dadka qaarkood marka ay maqlaan erayga jacaylka ah wuxuu u jeestaa caqligooda jacaylka jirka ah walaashaydii muslimadda ahaydee iga qaado waanadaani wiilka markuu jeclaado gabar weliba jacayl dhab ah kama fikiro jirkeeda weligiis sababtoo ahi jacaylka dhabta ah waa kan arwaaxda ama ruuxda ee ma ahan jacaylka jirka sababtoo ahi qofka ku jecel ma yaqaano weligiis wax la yidhaahdo khiyaano ma jiro jid lagu qancin karo haweenayda in lala guursado naag kalaynto hadday tahay xitaa saxaabiyad halkaana waxaan idinku haynaa haweenay dooratay intii ninkeedu naag la guursan lahaa inuu iska dhinto ninkeeda maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin u soo galay xaaskiisa asigoo dhahaayo sawjatii amiirka wuxuu amray nin walba inuu guursado xaas labaad haddii uu guursan waayo xaas labaad wuxuu amray in qof walba laga jari doono qoortiisa haweenaydiisii waxay eegtay eegmo kulul oo haddana mid aad u dheer waxayna ku tiri dhimasho ayaan kuu hibeeyey